دولة هذا عبش بدنا كتبينا سان ما قبض عنشورة بحيوينا ورا مساكين النهي عنشورة نقل قادة وحي حسر الدين وتحسن تامان تمدنا مدحوين وهذه قدرتها مرستي اللي دلها قبل 6 بريد للورا 6 بريد تريدي انتك شقيسا لا اله الا الله ورا مالك اللي بالدورة بورك حمر كويا لو واجع انت كذا كاهل ما انت هذا كون سو سعنا مدنا مدحوين انه وناق وجعلنا وحي وناق سوان جعلنا مدن مدحوين وحاولنا فو أنا قناة الصومالي واحد صومالي ناس يجرت جعلها هندد من ورهدا عرنا هندد من إلهي كعبسة تلك النقلة اتقوا الله من دون أن تعماي بدو مدن مدحوين ما تعماي وأوقعني ميلة والله إنا ميلة والله ميلة دون ساعدنا أنا يستاجدون وأنا للذكرى وحي حسر الدين وكعسن تامات دمنا العود قبر يويل عدمتي وحين كل انتين قاعد كقدر نادش وحي هلا يمله شعب واي ورا مدي حتى موت مدي قفا مدي ولا انه اللي دلها انت لو ارك وراكو بسطوله دا استودت كدلها هل الرادسن عسكرتيني واحد دلها هدي ربان كواد سدلها شعبك دولته كنت اللي دلها دا حكمسه وقلت انت لو ما فكر ميا شعبك مساكين تلقى مفكر ايه تنتين لما دي موقته وريا الدنيا استلم ده الله يسكنها المدة اللي قد تجيله المدة اللي قد تجيله المدة اللي قد تجيله dad caraysan ayaa isugu soo baxay taalada daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho iyaga oo xiray gabi ahaanba isu socodka wadada dheer ee xiriirisa isgoyska Jubba ilaa iyo madaxtooyada Soomaaliya waxaana dadkani ay sheegeen inay ka caraysan yihiin dil habeenkii xalayto ka dhacay isgoyska Jubba oo ka tirsan degmada Boondheere ee gobolka Banaadir halkaas oo 2 qofood oo shacab ah ciidamada booliska ay ku dileen hase yeeshee dadkan ayaa iminka waxay isugu soo baxeen taalada daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho waxaana sida idin muuqata ay xireen guud ahaanba isu socodka gaadiidka ee wadada hormarta isgoyska taalada daljirka Dahsoon ilaa iyo wadada gasha isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho dadkan ayaa qaarkood la hadlay warbaahinta waxaana ay sheegeen inay ka xun yihiin waxyaabihii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee dadka shacabka ah ee lagu laayay gabadhan ayaa kamid ah dadka soo banaan baxay ku soo dhaw telefishinka Universal maxaad ku soo banaan baxday maanta maxaa soo banaan baxay ina xaafadan ku dilo aanu ka afurayno noo imaad xaafadan ku dilo gabadha iyadoo dhaqanaysa alaab la dilay oo umulayso 10 bir dhala ayaa soo banaan baxay wiilkii wadnaha uga dhacday askariga oo dilay waliba oo si fakasho sameeyay walaalkiis oo qabtay oo dhahay askariga la qabto markii dambe la qabtay maxaynu u qabatay saasananka oo xaafadii waa amarka waaba qaadanay maxaa xaafadan ka daba imaadeen ku dilay madaxweynaha iyo wasaaraha maxaa ka xigsan madaxweynaha waa laba nijis waa laba gal وهاجاج ولي dadweyne ayaa waxay soo hormarayaan wadada ka timaada isgoyska Jubba iyagoo doonaya inay soo gaaraan taalada daljirka Dahsoon waxaana sidoo kale iyagu ay sameynayaan inay dhagxaan ku tooriyaan gawaarida isticmaalaysa wadada laamiga taasi oo keentay inuu hakad ku yimaado isu socodka gaadiidka gudaha wadada gasha isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho waxaana dadka idin muuqda ay yihiin kuwa ka yimid goobtii xalay shaqaaqadu ay ka dhacday iyadoo iminka ilaahay ay gubanayaan taayaro dadka isugu soo baxay oo ka careysan dhibaatadii xalay ka dhacday magaalada Muqdisho وين قريب
waxba ma ayna galabsan tahay waxaan idin lahay ninkaasna inuu la dilo oo xaqeena loo laga qaado adeerkaasi loo dilay asna inuu loo dilo laana adeerka wax ma galabsan bo marka waxaan idin lahay shacabka soo socda madaxweynaha Xasan Maxamuud farmaajo خلاص على جرى farmaajo siyaasad tahay dadka shacabka ee ku nool magaalada Muqdisho kana hadli doona mid nagula hayay markaa shacabada dad musliman ahnay waxaan rabaa filinka farmaajo uu magaalada Muqdisho wadiyo inuu wax ka bedeliyo dad musliman ahnay oo ku nool magaalada Muqdisho aniga waxaan ahay qof miskiin ah oo mootaara ah markii maqribkii la gaaro bandowga lagu hayo magaalada Muqdisho wax ka jira maahan bandowga filinkan uu keenay buqtadan uu keenay marka saddex walxaad eminko taal saddex walxaad eminko taal يسدوح ومهم مدكوبات مسلم كائن لما مولون لقنا ماجي ومهم مدلمات موريان تائن لما صلوحون مسكين تديل ومهم موريان تائن لما صلوحون مسكين تديل ومهم متسدحات مولا إن لو مهد علشون مولا إن لو مهد علشون مليقا دافنا ومهم ساسا يان لهي دولة صومالية إني مساكين دي شو ما فيعنو وأنا نسلامة haddana dadka isugu soo baxay taalada daljirka Dahsoon waxa uu soo gaaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamed Umar Filish oo doonaya inuu la hadlo dadka careysan ee isugu soo baxay taalada daljirka Dahsoon ما يتمغلينا هوس دقيقة ساعة أوكل ورقة هوس دقيقة هوس دقيقة ما يسمغلنا وين هوس جوك ما مغشي
aamusa aan wada hadalno si aamusa السلام عليكم Almarado diibas qabilaad waxaan rabaa inaan idin kala hadlo dhacdada inaan idin kala hadlo ayaan rabaa ما ismaqlaynaa وحير آموسة إذا لهضه وحير آموسة لليرد الرير مقدسو موجريات للير كوذا وأوغم هاد علنية لليرد الرير مقدسو للير كوذا سنة يقوم موجريا وأوغم هاد علنية من اللغات dhacdada xalad dhacday waa midaan idinla qaybsanayno xarunkeeda dhacdada xalad dhacday waa mid aan idinla wadaagayno xarunkeeda mar haddii aan idinla wadaagayno tallaabaha aan qaadnay ayaan idin sheegaynaa tallaabaha aan qaadnay dhacdadii xarunka lahayd ee xalad dhacday tallaabaha aan qaadnay ayaan idin sheegaynaa xalay si mas'uuliyad darro ah ayaa laba qof oo shacaba wuxuu ku jiray askari boliis ah askariga boliiska ah ee dilay shacabka Soomaaliyeed laayay ayaan فوضنا الداية ولا ريال فوضنا الداية فوضنا هلا الداية أنا اسمه قلو فوضنا هلا الداية أنا اسمه قلو فوضنا هلا الداية أسقري قد لي dadka waxaa loo qaaday xabsiga ayaa loo qaaday arrintaasna waa loo daba taagan yahay ciddii amartay iyo isagaba tallaabo cad ayaa dawladdu ka qaadaysaa adinka mas'uuliyiintii dadka la dilay aniga ii imaanayaan ayagaa maxkamadaynaya ninka dhibka dhigay ayagaa maxkamadaynaya qoysaska laga diray dadka iyo aniga oo isku safa ayaa maxkamad la fulayna waxaan rabaa mar haddii intaasu dhacday madaxda dawladdu sida aan u muujinayo ayay ila qabaan oo aniga ayaa codkooda ku hadlaya tallaabooyinka kale ee khaladaadka ah oo aan ahayn tii xalay oo keliya ayadana dawladdu way ka fadhidaa go'aanaha laga soo saari doonaa dhammaan waxyaabaha bulshada xadgudubka ku ah oo ay ka mid tahay bandowga ay ka mid tahay cadaadisyada faraha badan arrintaas dawladdu talay ka leedahay go'aano ayaana ka soo bixi doona go'aanada soo bixi doona aan dhowrno waxaan doonayaa oo kale inaan idiin sheego annagu adinka ayaan garabkiinna nahay
waxaan ku dhisnay laamiga waxaan ku dhisnay lacagtii adinka laydinka qaaday ayaa laamiga idinku dhisnay haddii nin daalim ah oo wax bi'iyo daalimka ciqaabta in asaga loo ciqaabo waaye laakiin lacagtaadii adiga aad bixisay inaad baabi'iso ma aha sidaas darteed laamiga iyo meelaha danta guud oon annagu leenahay oo canshuurtiina lagu dhisay aan wada ilaashano cid kasta oo edeb darro iyo wax aan munaasab ahayn kula kacda bulshadana sida aad dareenkiina u muujinaysaan ayaan idinkaga mahadcelinaya khaladaad kasta oo dhaca si nabada ayaan ku muujinaynaa sida aynaan u oggolayn haddana annagoo muujinayna dareenkeenna ayaa haddana waxaa loo baahan yahay inaan magaaladan annaga magaaladeenni ah ee burburka ka soo kabanaysa inaanaan burbur u soo celin oo aan taxadirkeeda lahaanno waxaad og tihiin burbur in laga soo kabanayo dadaallo badan ayaa loo maray in burburkaas laga yimaado wiilal badan oo idinka mid ah wax yaraan ismaqalno raalli ahaada dhalinyaro raalli ahaada bandowga waan ka hadlay bandowga waan ka hadlay aan ku celiyo mar kale dhegaysta bandowga aamusa aan idinla hadlo dhegaysta arrinta bandowga iyo waxyaabaha kale oo shacabku oo caqabadda ku ah taladeeda dawladda u fadhida go'aanaha ka imaanaya saacadaha soo socda arrintaas ayaa waxaan doonayaa arrintaas inaad iga qaadaan ninkii shacabka Soomaaliyeed ku xadgudba dhibaato abuura waxaa loo baahan yahay sidaad hadda u muujiseen dareenkiina inaad u muujisaan shacab iyo dawlad waa ka wada safarnahay in qof muwaadin ah oo Soomaaliyeed la dilo oo lagu fudado dilkiisa waxaad ogtihiin cadow aan nahaya cudur ayaan nahaya cadow ayaan nahaya ma ahan inaan dil kale ugu sii darro dadka Soomaaliyeed arrintaas waa arrin aan aad uga xunnahay waa arrin aan looga hari doonin qofka sameeyey waa arrin loo maxkamadayn doono ehelada dadka la dilayna waxaan doonayaa in la ila soo xiriiriyo oo maamulka degmadu oo ii keeno haddii rabbi idmo si aan u wada maxkamadayno intaasaan raba inaan idin idhaahdo bannaanbaxyadii dareenkii aad ku muujinayseen ama bandow ha ahaato waad muujiseen magaaladiinna ha burburinina yaan la idinku dirin horumarkiinna aad iyo aad aad u mahadsantihiin si tartiib ah akhlaaqnimo iyo dadnimo ay ku jirto inaad danihiinna u qabsataan ayaan idinka codsanayaa intaasaan raba inaan idin sheego wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah عمرت أسكت حير أديك إسكت جبنة